السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخيرات والمسرات وأطيب الله جميع أوقاتكم أينما كنتم وأينما حللتم. walaalayaal waqtiga haydan wacnaado waxaan joognaa ururiye suuban dikriga ilaahay subxaana wa tacaalana ha lagu bilaabo, salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam ha la badiyo, suuratulbaqara akhrinteedii ha la badiyo iyo wa aali cimraan si arsaaqdana ilaahay idinkugu furfuro, culeysyada sixirka iyo isha iyo xasidka iyo amraadan halista ilaahay idinkaga badbaadiyo, dadaal hala sameeyo. intaa ka bacdi waxaa aada loo wareejinayaa kaliib wiil uu soo duubay oo uu kaga hadlayo waajidi xasan waajid uu kaga hadlayo oo uu ka sheeganayo aada iyo aada ugu sheeganayo dhibaatooyin asiga iyo macallimiinta kale ee xaruntaasi majaalis alqur-aan ka shaqeynaysa loo geysanaya. waxyaalo fara badan oo istidlaalaad ayuu soo qaatay, uu kaga hadlayo sheekhu leeyahay dhibaatadaas igu sameeyey aniga ma ahan. 40 qofood oo macallimiinta ka midana waa la soo eriyey bilaa sabab la-aan. kaliibkaasna kaliib baa ka horreeyey nin la yidhaha Xuseen oo social media asagana ku jira. wiilkaas ayaa marka hore kolley arrinka ka soo hadlay oo loo soo sheegay la yidhi macallimiinta qaar baa lasoo xiriidhaan u malaynayaa dee arrinkaa inaad ka hadashaan doonina oo kale inay yidhaahdeen baan rajaynaya, waayo qaabka hadalkiisa uu dhigay wuxuu ahaa in arrinka lala soo wadaagay. kabacdin wiilkana soo hadlay oo uu leeyahay dhibaatadaasna lagu sameeyey waana nala soo eriyey. 15 saacadood baan shaqaynaa, 15 saacadood aan shaqayno haddana maalmaha qaar waxaa dhici kartaba in bani aadana la yahay aan soo daahano ama qof soo daaho 500 baa laga jaraya, waxaa la siinaya 1500 ilaa 2000 inta u dhexaysa weeyaan. marka kabacdina maalmaha qaar xataa waxaa dhici karta qofka inaan waxba la siinin liajli amar diidumiya mase wax noocaas uu sameeyo, telefoonada in la iska xareynayo. wiilka adugu wax badan buu ka hadlay macallinkaasi ah, anu aqoon malihi ma garanayo, laakiin aad baa kaliibyadiisa loo wareejinaya wiilkaasi. horta waxaan leenahay wiilka ilaahay subxaana wa tacaala macallinow albaab khayrqaba allaha kuu furo. waxaa dhibaad ka tabanaysana oo aad sheeganaysana ilaahay subxaana wa tacaala ha kuu boogadhayo oo faraj khayrqaba allaha kuu furo. gacan bani aadana baahidiisii baahi aada u qabteen allaha kaa koriyo. ilaahay subxaana wa tacaalana wax ku deeqa caruurtaadii, ehelkaagii, arxankaagii, asxaabtaadii, masaakinta wax ka siisatana khayr badan allah ku siiyo insha allah. mida kale waxaan kuu raacinayaa macallinow qof qur-aanka yaqaanana tahay baa ii muuqanaysa, macallin baa tahay, sabar baa dadka la faraya in badan inaad dulqaadatid isku day, inaad weliba aada cafisid qofka dhibaatada aad ka sheeganayso. walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ayaa meesha taalla. ha iska cafiyaano ha saafaxaano, yacni ha iska daayaan dadka dhibaatada ay kaga sheeganayaan. miyaanan doonahayn buu ilaahi subxana wa taala inuu u dembi dhaafo, leanna markaa qof walaalo muslima dhib kuu geysay aada cafiso ilaahay dembi dhaafku kuugu bedelaa. dembi dhaafkana waa waxyaalaha qofka bani aadamka uu raadsanaya ee doonayo weeyaan. jannadana waxaa la doonayaa bilaa xisaabin walaa cadaab qof waliba inuu galo. marka waxaan ku odhan lahaa facfu canhum wasfax ina allaha yuxibu lmuxsiniin. aayaddan waxaa lagu hooriyey muxsin, yacni qof walba muxsin ma noqon karo, qof walba muxsin ma noqon karo. marka allah nagu daro qolada muxsiniinta wanaagga badan, wanaagga ummadda kaga tegaya. waxaan tale usoo jeedinayaa intaan macallinka arrinkiis markaan ka gudbo kaliibkuu dheeran doono, laakiin raalli ahaada. macallimiintu ama kan maamulo aha ama kan macallinka aha wuxuu doon ha ahaadee, macallimiintu ayagaa isdulmiya walaalayaal. macallimiintu ayagaa isdulmiya, macallimiinta ayagaa cagaha kale isaga taaga. qof kale isagaa ku taagan. qof madaraso samaystay waa lagu taagan yahay. qof ma garanaysaa shaqadiisii iyo noloshiisii maareysanaya waa lagu taagan. yaa ku taagan? macallimiin baa ku taagan. ilaa iyo marxalad in lisa sixiro ay taagan tahay, ilaa iyo marxalad lisa sixiro ay taagan tahay. macallimiinta maxaa daliil u ah? waxaa laga yaabaa wadaadkan miyuu iskama hadlay dhegeysta. 2025 bilowgeedii barta hadda dukaankan idinkala soo hadlay. dukaankan alxamdulillahi rabbilcaalamiin, ilaahay baan ku mahadsan, anaa iskale. hadalkaas gadaalan ka keeni doona.
dhabarkayga dambe xaggaana madrasa igu online jirtay la yidhaha mu'asasatu al-axfad lil-iqra wa diraasaat al-qur'aaniyya oo aan jadwalkeeda adduunkeeda nidaamiyey waxeeda oo dhan qayb macallimiin u gaara qiraa'aadka lagu barayo tasxiix lagu barayo kutubada culuumul qur'aan oo dhan lagu baray aan ugu talagalay oo akaademiyad ah oo sanad inay socoto ama 2 sano taqriiban ugu badnaan ay socoto ugu talagalay ee shahaado ay ka qaataan oo aqoontooda ay horumariyaan ugu talagalay bal iskada dadka qaar xataa wax shilmaana kamaana qaadan jirin waxaa dhacday inaan xanuunsado markaan fasal aan soo galo madax la igu dhufto dabeecaddeeda xumaato cuntada aan ka go'o waalidiinta ila yaabaan arday ay yaabto macallinkeena noo fiicnaa maxaa ku dhacay la igu yidhaahdo weligayga maan ahayn arday inta ul u soo qaato 10 u garaacay ma ahi may fahmaysaa waxa weeyaan macallimiinta iyagaa cadow isku ah walaalayaal ama wadaad ha noqdo ama sheekh ha noqdo wuxuu doon ha noqdo ayagaa isku mashquulsan ilaahay markii laga baqayo waxaan leeyahay kuwa saaxiriinta ah macallimiinta shaarkooda huwan ee isku qaranaya ee madaarista dhibaataynaya ilaahayna ka baqa ilaa iyo Nairobi cisbitaal taqriiban 5 cisbitaal baan tagay aniga idin la hadlayo bishii 10aad 2025 ilaa waxba la iga waayay iskaamba saal ii mariyay MRI qofkii garanayo marka isbitaalka dhiig wax walba la iga baaray jirkeyga oo dhan dhiig saxaro kaadu maxayba waxna la iga waayay kalideeda inay soo dhacaysan moodaa maanta ka hor saa toos uma aanan sheegin yani waxaan ku keenay wiilkani dhibaatada oo sheeganayo oo xasan waajid uu ka sheeganayo iyo say macallimiinta isugu taageen ad-did bid-did qof kale ayuu cadow ku yahay waxaas aayadaha quraanka kariimka la akhrinayo halkay martay aayadihi halkay marayaan aayadaha halkay marayaan ummadda wanaagsan si wanaagsan haloola dhaqmo salama oran wala la dhageysa kaliibka hadduu dhamaado kaliibkan soo duubaya qisada way yara ballaaranta aniga khusay arrinkan waxaan ku keenayaa ninkani macallinkani dhibaatada sheeganaya inay macallimiintan isku fiicnayn in qof macallim ah horumar sameynaya ardada aan u meerinayo waa la garanayaa oo casharada aan ka dhisay ilmo yar ee soo kacay 7 sano jir ilaa 12 sano jir u dhaxeeya aan carabka ka dhisayay oo aan xifdisanayo quraanka kariimka maxaa lagu sameeyay madrasadeedii muassasadii xarunteeda maxaa lagu sameeyay dhulka la ilaa jaray ana xanuunsaday baartaan baan tagay waxba la iga waayay markii dambe tolba joogo tola isoo gurmaday macallimiinteedii qaar ka mid Allah barakay quraana la isaari waan caafimaaday kanin waxba iga qaban waa hurdo la'aan habeen soo jeed wax kasta dhib walba la imarsan karo bal iska da waxaan maray marxalad ah haddaan madrasa boor ay ku qoranta boor caadi ah boorka caadiga madrasa magac ay ku qoranta ay madrasa waxay doontaa noqoto aan arko inaan xanuunsado barta wadnaha la igu dhufto oo haddana isbuuciyo iyo bilooyin aan jiifo marxaladaasan soo maray yaa i gaarsiiyey macallimiin baa i gaarsiiyey waxaan arkay wallahi macallimiin baa ila shaqaynaysay oo ardaydana ka mid ahaan jirtay waxaan ku yiri ma aragta macallimiin biyo wax u eg baa la igu daadiyaa mar walba albaabka aan ka gelayo madrasadeedii qaybta partiga aan ku jiro ayaa wax weyn mar walba waxaan arkay 2 jeer 3 jeer ku dhanaan arkay 2 jeer waxaan la wadaagay macallimada iyo macallin kale gadaal aan ka keenay marka ugu dambaysan wax shaah u ag aan shaahna aan ahayn ala igu daadiyaan indhahiga saaray anagu shaah waa naqaana biyana caadi waa naqaana xanuun bartaas ugu bilaamay arday intuu waalid soo waco assalaamu calaykum xarunta muasasada halka ku taala meel heblaayo gaari noo soo dir waan imanana ilman wadana saas miyaha intee joogta meel hebel gaariga haddaan dadka u diro ma imanayaan markay yidhaahdaan waan soo socnaa xarunta ku taala ma imanayaan ardayga bal iska da wax oo dhan ardayga intuu isqoro ee la qoro qaar ka mid ah in macallimiinta qaar meesha wax ka baranaysa madax xanuuno ay ka cararaan meesha in arday intuu lacag qaato lacag maxaa la yidhaha lacag uu bixiyo maanta hadduu soo xaadar beritooda madax lagu dhufan dib aan usoo noqonaynin waa qisaska anagaan aragnay kama tahay aniga la igu sameeyey ilaahayna ka baqa macallimini walaa yuflixu asaaxiru xaysu ataa halkan hadda aan joogo iskama imaanina dhegeysa waxaan idin sheegaya macallimini walaalayaal yaa idin gumaysanin qofba waxaa ka sheeganina naftaada u xurow naftaada xur ka dhig waxaa idin gumaysanaya ma garanaysaa aqoontiina gaaban marka adiga lagu arko in qof aqoon leh isku filan soconaya dantiis qabsanay aata lagu arko adaa lagu baahan adaa lagu tugto ii kaale xataa hal waqti kamid waqtiyada isi adaa lagu barbaraya meesha macallimiinta 30 iyo 40 kun lagu soo tuurayo adoo 150 200 kaale qaadan 100 kun qaada lagu leeyahay adaa lagu baahan
madrasa hadda ma hayo bartaasan jooga halkaasan ilaahay ku caabuda halkaasan baarta kale kusoo gudbinaya